qaramada midoobe u qaabilsan gudaha Soomaaliya magaciisa loo soo gaabiyo UNSOS oo maalmihii la soo dhaafay xaraashi iyo agabkii ku shaqeynayay ayaa ku wargeliyay ciidamada AWSOM inay ka baxaan kunteenarada ay guri ahaan u degan yihiin isla markaana ay wareejiyaan matoorada dabka dhaliya agabkaas oo dhammaantii lagu biirinayo kuwii xafiisku uu iska xaraashayay 6 bishan ay ahayd markii UNSOS uu gaaray go'aan la xiriira in la iibgeeyo baabuurta matoorada kunteenarada iyo agabka kale xafiisku uu leeyahay kuwa oo dhammaantoodba la xaraashayo sababta waxaa loo arkaa go'aan kama dambaysa iyo diyaar garow UNSOS uu ugu jiro albaabada in la isugu laabo guud ahaantiiba waxaana tallaabooyinkan ay daba socdaan go'aanadii dawladda Mareykanku ay gaartay bishii July kuwaas oo ay shaaca kaga qaaday in wixii ka dambeeyay sanadka 2026 la hakin doono malaayiin dollar oo Mareykanku ay ku maalgelin jireen qaramada midoobay hawlgaladeeda gudaha Soomaaliya. UNSOS waxaa la soo mari jiray balaayiin dollar oo Soomaaliya siyaabo kala duwan loogu maalgelinayay kuwaas oo isugu jira dhaqaalaha la siiyay ciidanka nabad ilaalinta midowga Afrika ka socda kuwa loogu talagalay mashaariic horumarineed gargaarka iyo arrimo kale waxaana xafiiskan uu kaalin weyn ka qaadan jiray howlaha hortawinta ee qaranka gaar ahaan dib u dhiska iyo horumarinta dawladnimada balse tan iyo markii ay soo ifbaxeen macluumaad ka muujinaya in taageerada dhaqaale uu helo ay meesha ka bixi karayaan waxaa muuqanaysa in xafiisku uu bilaabay diyaar garowgiisa ku aadan in si tartiib ah uu isna meesha uga baxo taasi waxay keentay inay soo saaraan go'aanada ay ku xaraashayaan agabkii ay adeegsan jireen balse arrinta ku aadan in kunteenarada iyo matoorada dabka dhaliya ciidamada AWSOM adeegsadaan la iibgeeyo ka hor bisha Sebtembar waxaa loo arkaa tallaabo weyn oo khatar dhalin karta maadaama ciidamadan ay hayaan amniga degmooyin iyo deegaano muhiim oo istiraatiiji ah agabkanna uu yahay mid muhiimadiisa u sameynaya macluumaadku waxay muujinayaan in UNSOS go'aanka ay gaartay ku wargelisa AWSOM ee la xiriira agabkaas inay isaga baxaan ciidanka ku sugan gaar ahaan kunteenarada oo guryo u ah ciidamadaasi howlgalka nabad ilaalinta u jooga gudaha Soomaaliya. dalka Soomaaliya intiisa badan waxa uu ku tiirsan yahay mashaariic horumarineed iyo dhaqaale la soo mariyo xafiiska qaramada midoobay kuwa oo qayb weyn ka qaadanaya tan iyo sanadihii la soo dhaafay dib dhiska dalka iyo howlaha dawladnimo. dad badanse waxay u arkaan inuusan wax badan ugu oolin qarannimada oo ayba tahaba inuu meesha ka baxo xafiiskaasi UNSOS balse waxaa jira doodo kale oo kuwaas barbar soconaya oo la xiriira inay muhiim tahay sii wadista dhaqaalaha la soo mariyo xafiiskani si howlaha dawladnimo ee Soomaaliya isu kabaan maadaama dalka loo arko xilligan inuusan gaarin meel uu lugihiisa ku istaagi karayo. dawladda federaalka ee Soomaaliya dhowr jeer oo kala duwan ayaa goobo fagaaraha ka sheegay madaxda qaranku in dalku isku filnaanshiye gaaray haatanna uu ka sii baxaya gacmaha shisheeye ee taageerada uu u baahi qabay taasna waa mid ka mid ah waxyaabaha loo arko inay soo dejisay go'aanada dawladda Mareykanku ay qaadatay taa oo bixisa dhaqaalaha ugu badan ee Soomaaliya lagu taageero marka dalalka dunida loo eego.